kusoo dhawow STN mar kale. waa dhawaacayse waa dhammaansantahay. bal haddii aan ku bilaabno wiilkii gabadhii arrimo badan ayaa soo baxayay social media ay haysteen toddobaadkan lasoo dhaafay. dadka qaar waxay sheegaan dadka inay islaam ahayn markii hore, bal xaaladooda maxaa nagala socodsiin kartaa? horta saan sheegnay waxaan ka hadalnay wiigii ama usbuucii soo dhaafay sheekadaas waxaynu ku saabsanayd haddaan sii xasuusina dadka daawanaya ama nagu cusub wiigii hore nala socon nin xasanaad la dhihi jiray oo iyo maxaa la jiraa xaaskiisa oo cabdullahi la dhihi jiray oo waxaa dadka ugu wici jireen Instagram couples. dadka Instagramka aad ugu shidan ay ahaayeen oo waxay tusinayeen dadka in maxaa la yiraahdaa oo jecel iyo isu soo dhaweyn fiican ka dhaxayso ayagoo dacwo iyo maxaa la yiraahdaa dhaqanka islaamkana ay tusayeen dadka kale. marka wiigal soo dhaafay waxaan uga hadalnay waxay ahayd in ay sheegeen ninkii xasanaad ahaa oo xaaskiisa jeclaa iyo wixii aan arki jirnay in naag kale ay kusoo birtay familkiisa oo maxaa la yiraahdaa sister Sahra gabar la yiraahdo oo naag labaad gursaday. marka dadka si weyn ayay reaction ugu bixiyeen oo qaar way taageereen qaarna way yar ka soo horjeesteen. sheekadiisa saas oo ahayd dadku ugu faraxsanaayeen maadaama ninkan dacwo waday iyo gabadha saan sheegnay gabadha wajigeeda la arkay ma ahayn oo xanishareer ay qaadan jirtay niqaab ay qaadan jirtay oo waxay tusaysay inay qof practicing muslim amaba qof diinta dhaqankeeda aad ugu adag ay tahay. ninkana sidoo kale haddaad fiirisid muuqaalkiisa ama maxaa la yiraahdaa ashcaartiisa kore khamiis ayuu qaadan jiray oo gar ayuu lahaa sunna ayaa ka muuqatay aayado quraan akhrinayo asoo sidii cadaysnay oo kale miswaaq in sunna waxyaabahaas oo kale ayuu sameyn jiray. dadkana aad ayay ula socdeen way jeclaayeen oo followers badan ayuu ku haystay Instagramka. marka maadaama saas ahayd oo naag labaad guursaday ayuu sheeka ayuu keenay oo dadka maadaama sunna waay naag labaad in la guursado say u react gareysay xaaskiisa koowaad ama Cabdullaahi oo kale ayadana way soo dhaweysay. hatta sheekada waxay ahayd in naagtii koowaad ayaa naagtan labaad ninkeedaba jecel ay u qabtay iyo diin jecel hadiyad ugu dhigtay ayaa la yiri. marka taas reaction weyn wiigal soo dhaafay dhan ka socday. taasna ayaa maxaa la yiraahdaa aan anagana ka hadalnay wiigal soo dhaafay. marka usbuucan sheeko labaad ayaa timid oo ahayd maxaa la yiraahdaa in sheekadii boogtay qof saddexaad u meesha soo galo waxba qarxay wax la ogeen. marka sheekadii dham inay ahayd wax film loo jilaayay oo wax run ay ahayd ayaa dhacday. kaba sii daranba waxyaabihii 2 sano 3 sano dadka lagu akhrinayo oo dadka laga gadayay oo la tusiyay inay noqdeen waxyaabo maxaa la yiraahdaa aan runba ahaynba oo labadaas couple sida xasanaad iyo xaaskiisa koowaad ee Cabdullaahi ba ay ku noolayeen double life ama nolol labaad ay ku noolaayeen oo reality-gooda ay ahayd iyo waxyaabaha markay gurigooda joogaan iyo magaalada ay ku sugan sameeyaan iyo markay Instagram ay imaadaan oo sawir iska qaadayaan ama video ay sameeyaan nolol kale ay ku noolaayeen ay ahayd tii ayaa la fashilay oo waliba waxa la gaarsiiyay in ninkan xasanaad la yiraahdo ay muslim ba ahaynba ayaa la gaarsiiyay oo dad badan ay ku soo warmeen. markii dambe waxay tagtay in labadii xaas tii koowaad iyo tii labaadba maxaa la yiraahdaa ay confession ay sameeyaan oo ay yiraahdaan waxaan saas ma ahayn waxay qaladaan sameeyay hadal ka raala ahado ninka ayaan ugu sababay ninkan waa nin xun nin diin shaki ka qabo waa muslim ma ahan waxyaabahaas ay keeneen. marka taas ayaa wiigii labaad ayaa haysatay. wiigii horena wax positive ayay ahaayeen oo dadku ku raaceen. wiigii labaad sheekadii dhan ayaa isbedeshay. dadka laakiin waxay la yaabeen say ugu guuleysteen inay dadkan intaas boqolaal kun oo ay followers ay haystaan siday ay maxaa ugu aqli badiyeen oo intaasna sheeka been ay ku wadeen ayay la yaabeen. marka saas ayay u dhacday wiigan aan ku jirnay. marka waxaa la dhihi karaa dadka muslimiinta waa dad oo diin jecel oo marba haddii xagga diinta laga soo galo oo qofka isbixinayo haddii diin Kristaan ay ahaan lahayd ama diin kale ay ahaan lahayd laga yaabee in dadka aad loo sii aaminin. marka su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay bal maadaama ay arrintanba been noqotay guurkii labada xaas inuu isla guursado taas xaqiiq ma ahayd mase ayadana waa been? ma taas waxaa la yiri in markaas inuu guursaday usbuucaas laga hadlayay ayaa been ahayd laakiin hore uu qabay waa la sheegay soo ma fahmin. marka saa sheegtana dadkan waxa uu ugu soo dhuuntay in diin ahaan iyo dadka markii diin loo soo marana maxaa la yiraahdaa way sirmaan oo maxaa la yiraahdaa qofka uu diin hal mar ku tusinayo kale waxaad ugu shakisaa iska yar. Soomaalida waxay tiraahdaa adoo arkinaa in inkastoo ay iska fiican tahay inaad ka feegi jignaatid waxyaabaha dhacaya iyo waxyaabahaas oo kale. mana ahan keligooda oo dad hore gaala jireen oo social media caanka ah oo nolol been ah dadka tusi jiray
ha ahaato inay iska dhigaan dad taajiriin oo lacag leh laakiin reality markaad fiirisan dad broke ay ahaayeen marka sheekadan ayaa iyagana noo jilaayeen sheeko aada u xun kaba sii daranba qof maxaa la yidhahda oo been kuu sheegay oo nolol kale kaa gaday maxaa la yidhahdaa oo markii dambe aad ogaatay wax weyn ma ahan markii hore haddii follow ku ahayd oo la socotay aan follow aad dhehaysa waa kasii soconaya taas waxaa kasii daran oo dadka hadda ku haysan dadkaas waxa waaye waxay sameynayeen wax la yidhahdo ruqiya oo dadka quraanka saara xanuunsan ayay ahaayeen waxay naga gadeen markii hore oo dad badan oo client ama customer oo dad quraanku akhriyaan ayay lahaayeen oo wadamo badan ayay isku mari jireen taasna lacag badan ayay ka heli jireen teedo kale lacag badan oo sadaqa ay dadka ka aruurin jireen lacag la sheegay inay gaartay 300,000 oo pound waa lacag aad u badan 300,000 oo dollar lacagtii ay qaadeen intay geeyeen marka dadka xanaaq iyo waxaan ka muuqdaa ujeedid waa dad badan oo maal dadka ka qaado waay oo siray marka haddii ahaan lahayd un wax laga gaday qof been sabar kugu sheegay wax weyn ma ahan waa ka laabanaya laakiin dadka waxay ku haystaan lacagtii wixii la qaaday kon inay ahayd oskam ahayd iyo lacagtii intii la geeyay ayaa la isku haystaa mid kale waxaa soo baxaysa wadamada ay kasoo jeedaan waxaa la sheegaya dad ingiriis ku nool inay yihiin laakiin wadan kale oo carbeed ay kasoo jeedaan hadda waxaa soo baxaysa wadamo kale inay kasoo jeedaan taasna maxaa nooga sheegi kartaa tii hore naloo sheegay hadda waxay ahayd in maxaa la yidhahdaa uma cabdullaahid iyo xasanaadka labadaba ay asal ahaan kasoo jeedaan wadan carbeed oo maxaa la yidhahdaa marooka ah marka hadda tii un meeshay kasoo jeedaan waxay yihiin wax weyn ma ahan laakiin hadda wadanka ay ku nool yihiin oo ay baasaboorka haystaan oo kusoo koreen ayaa ingiriiska ah soo ma fahmin dadka xanaaqa iyo reactionka hadda aada u bixinayaan wuxuu yahay beentii iyo dadkii ay ka gadeen iyo teeda kaloo diintii iyo maxaa la yidhahdaa iyo diin islaamku been ka sheegeen iyo qur-aankii ay sameeyeen soo ma fahmin qof gaal ahoo hataa gaal ma ahan gaalayaashaaba kala fiicanba waxaa la sheegaa ninka inuu yahay atheist kuwa la yidhahdo oo diinta aan lahayn inuu ilaahay jiru ka shakisan yahay waxyaabahaas oo kale marka qofka dadku waxay u xanaaqsan yihiin diintii uu caayay nin diin caayo waaye soo ma fahmin diintii kusoo dhuuntay haddii adi maanta iga gadid inaad taajir tahay oo business leedahay oo adi kumanaanka $1,000 saas igaga siratid si caadi ah diin iguma soo dhuuman aqligaaga iyo waxaad isticmaashay tuugnimadaada taas waxaa kasii daran dadka marka haddii diinta lasoo maro diinta ciyaar laga galo maxaa la yidhahdaa reaction aada u weyn ayay ka bixinayaan tan labaad waxay tahay dad waxay jireen oo dadka muslimiinta ayaa fanskooga ahaa soo saan kuu sheegay dad culamo ah oo diinta faafiyo maxaa la daaciyaal ah oo dad waaweyn ah ayaa dadka indhoos galiyay markii hore oo taageeray dad culamo waaweyn ah oo waxay yiraahdeen maasha Allah dadkan waxay tusayaan dadku wax aad u fiican marka dadkii xanaaqsan hadda magacooda lagu qaraabtay soo ma fahmin marka qof caalami maanta hadii adi maxaa la yiraahdaa nin sheekh Soomaaliya taqaano kale aduu kula socdo uu ku amaano dadkii waxay dhacaysaa inay si kusii aaminaan dadkii marka reaction xun ka bixinayo oo xanaaqsan oo maxaa la yiraahdaa feelingskoogan aad u adag yahay marka dambe ninkan la dhihi jiray xasan waa soo baxday in uu yahay nin aan islaam haysan laakiin labada gabdhood ka warna ayaga dad islaam ma ahayn hadda horta haddaa fiirisid dadka markay ka hadlayaan xasanaadkan iyo labadan gabdhood si yar kala duwan ayay u hadlayaan oo waxaad dareemaysaa in ninkan xasanaadka ay ku yar adkeynayaan oo maxaa la yiraahdaa daleeceyntiisa aad ugu adag tahay waayo ninkan asaa rag ahaa oo waxaan dhan asaa waa ninkii abaabulay bay waxaan teeda kale gabdhahan ciideenta hadda ay leeyihiin waxay tahay inay nin ciyaar wado ay ku taageereen ayaga hata kama yaro ileen way ogaayeen waxan oo way ku taageereen oo way u qariyeen soo ma laakiin asaga tiisa video ayaa lahayaa asoo diinta wax ka sheegayo asoo sheeganaya inuu gaal yahay wixii ayaa lahayaa marka dadka waxay ku xukumayaan ama ku judge gareynayaan video iyo codkii asaga laga haayo soo ma fahmin gabdhahan gaalnimo iyo waxay sheeganayaan lagama haayo ayaga waxa lagu haystaa hadda inay ninkan wuxuu u qariyeen oo ayaga xataa missionka ay la wadeen soo ma fahmin teeda kale ayagaaba tan ugu weyn ay ahayd oo waxyaabo badan iyo ama evidence ama caddeyn badan oo asaga hadda lagu hayo dadkii keena ayaga waayo soo ma fahmin marka saas ayaa u kala duwan tahay reactionka xasanaadka iyo markii gabdhaha laga hadlayo ay u kala duwan tahay midda kale gabdhaha maadaama ay midaan gabadhan lagu magacaabo uma cabdullaahi ay ilmo u dhashay tan maxay maadaama mar hore u qabay maxay ilmo ugu dhalaysay sida la sheegay horta wuu qabay oo inuu wiigaas guursaday usbuucaas aan laga hadlay inuu guursaday ayaa been ahayd qabitaankana saas uma dheeran sidii markii dambe la caddeeyay waxay inay bilooyin yar adii 6 bilood 7 bilood oo kale inay qabeen marka 7 bilood hadii la isqabana sharciga iyo aqliga iyo science-kaba cunug laguma dhali karo midda kale magacyadooda rasmiga ma la ogaaday ay hore u lahaayeen magacyadooda rasmiga gaal ma ahayn dadkan waa dad oo maxaa la yiraahdaa dad islaam waay dad Soomaali ma arkin ciyaalo suuqyada oo saas ma jiraan
ayaga dad saas ah ma ahan dad oo saas ah oo gaalo ah ma ahan waa dad asal ahaan kasoo jeedo dad muslimiin ah ka wada dhasho waay ma ahan dad ninkan waa nin xun oo maxaa la yidhahdaa adoo muslim ahaa soomaali u dhalato diinta haysatay waa noqon kartaa in shaki iyo shaydaan intuu ku waalo aad fikir xun ama maxaa la yidhahdaa tashuush kugu furo inaa kugu dhacdo way dhici kartaa marka asna saasay ku dhacdo maahan in dad john la dhihi jiray iyo waxaas maaha laakiin asaga qur-aanka aad u yaqaanay tafsiirka u yaqaan axaadiista u yaqaan maxaa shaka u keenay haddii waxaan horta ilaahay qalbiga maamulo soo maaha marka haddii ilaahay nagu riday imtixaan saasuu kugu dhacdo ninka hadduu qur-aanka aqrinayo qaradiisa iyo suu aqrinayo waa si aad u macaan waa aragtay teeda kale qof hadda soo islaama oo kale markuu aqrinayo waa laga dareema moogta lahjadiisa iyo siduu u aqrinayo laakiin asaga aad ayay ugu duwnayd waxyaabaha dadku ku siraaba saas ahayd qof quruxdiisa ay arkaysid muslimiinta oo ingiriiska hadda maxay sameynayaan marka maadaama oo ninkan lacagtii uu muslimiinta ka aruuriyay halkee geeyey maxkamad may la fuuleen maxay qabteen hadda maxkamad lama fuuli karaan laakiin hadda waxa ugu weyn waxay yahay inay maxaa la yidhahdaa ay horta ilaahay ku fashidiyey wixii xun oo watay soo ma fahmin tan labaad waxa waaye way ka daleeceynayaan oo waxay leeyihiin kuwii hore u taageeray sidii aan kuu sheegay oo kale dad dhalinyaro waxaa jira dacwo wadaan oo markii hore taageeray dadkiina waxay leeyihin waa ka xunnahay qaladaa sameynay qofkii ayay fashilayeen hadda soo ma fahmin tan ugu weyn tan labaad waxay tahay horta labadii gabdhood oo kale familooday wada aadeen tukasta family kasoo jeedaa gacanta ku hay sida loo sheegay hadda waxaan beri waa isbedeli karaan waxyaaba aan hawada kala socono waay marka tukasta familkeeda gacanta ku hayo labadiiba waxaa laleeyahay depression ku dhacay way si xun bay u fikireen isbitaal ay ku jiraan xanaaneen ay ku jiraan familkooda gacanta ku wixii aan loo sheegay anaga hadda soo ma fahmin marka asaga weli reaction ma soo bixin tan ugu weyn culeyska weyn asaga saaran yahay tan labaad lacagtii hadda dadka ugu dambeeyay waxay leeyihiin dadkan dhalada kusha dacwooyinka ah oo ingiriiska jooga waxay leeyihiin dacwada iyo maxaa la yidhahdaa daaciyaasha ah oo ka shaqeeya dacwada islaamka waxay leeyihiin hal noo sheega lacagtii meeshay geeyeen hataa gabdhihi ha soo sheegeen horta meeshii lacagtan la geenayo soo ma fahmin tan ugu xun waxay tahay asaga le gaal ma aheen asoo gaal eh dadkan wuxuu isku dayaa la yidhaha labadan gabdhood inuu diinta ka saaro uu ku qasbaya marka waxyaabaha lagu haysta taas ayaa ka mid ah waxaa kaloo jira internetka markii ugu horeysay oo adduunka oo soo galay wadamadan east africa kenya waxaa naloo sheegi jiray in internetka aan la aaminin waxa alla wixii internetka qor maadaama dadka internetka uu ku cusbaa way waxyaabo badan oo internetka lagu soo qoro aad ay u aamini jireen laakiin dadkan saxufiyiinta oo idaacadaha ka shaqeeya iyo warbaahinta waxaa la dhihi jiray wax walba internetka ka jira wax laga soo xigan karo war ma noqon kara laakiin hadda waxaa arkaysaa dad badan oo internetka aad u aaminsan hadday noqoto caafimaadkooda internetka ku xiran yihiin hadday noqoto waxbarashadooda internetka ku xiran yihiin hadday noqoto cilmigooda waxbarashada internetka ku xiran yihiin midda kale waxaa arkaysaa dad internetka waxyaabo soo bandhigo oo laga yaabe inay been tahay oo ujeedid macnaha hadda gabadhan iyo wiilkan iyo labadan gabdhood iyo lama ogeyn dad muslimiina loo maleynayo laakiin nin example waxaa jira internetka warar soo sheego mar kasta warkii oo maanta la sheegay ama wixii oo saako kale la sheegay ama Kenya laga sheegay ama wadamo kale laga sheegay ama Soomaaliya laga sheegay ayuu usoo qaadanaya si kale oo macnaha oo qiyaas ah oo asaga maskaxda habeenkii ma kusoo dhacday ama ogi laakiin subaxii kaamirada la soo fadhiisanaya dadka oo dhan way aaminayaan macnaha muuqaalkiisa viewgiisa markaa fiirisid maalinta ka dambaysa oo sii badanaya hindidoo kale waxay aad ugu dheereeyaan adduunka computerka sida dadka loo baro ee casharada ay soo dhigaan marka tusaale ahaan youtube oo kale waxaa shardi u ah in oo youtube-ka nimanka iska leeba ay sameeyeenba qofka markuu 1000 subscribe iyo 4000 oo hours oo view markuu gaaro in la aqbalayo laakiin asaga wuxuu cashar oo ciwaan waxa uga dhigay waxaan idin bandhigayaa barnaamij oo 1000 view adoo haysanin iyo adigoo haysanin macnaha sida video xayisiinta laga ogolaan lahay ama aad sida ay ku aqbali lahayd marka wuxuu soo bandhigayaa video hal channel oo hal video ku jiro oo hal magac leh calaamad leh marka channelkaas ay viewgiisa ku tusinaya oo 80 gaaray iyo kan oo subscribe-kii 2000 isla filmkii oo kale oo ku jiro YouTube kale oo hadhow ku tusinaya oo isku daba xiraya moogta marka dadkii waxay u maleeyaan laakiin kuma tusay meesha la taabtaa iyo kana la taabaa way aamineen marka view fiirs waa furana moogta 1 milyan 2 milyan dadka maxay beenta u jecel yihiin ujeedkan kale iyo dantan kale waa maxay sheekadan bal inaan ku weydiiyo dadka maxay beenta u sii jecel yihiin oo beenta u sii xiiseen horta qofkan sheegtay dadkan social media ka shaqeeya ha ahaato YouTube ama website ha lahaadaan haddii doonaan dadka waxay u noqotay maqaaxi oo kale ay ku xamaashaan oo arsaaqooda saasay ku helaan marka teeda kale maxaa la yidhahdaa advertisement waxyaabaha la yidhahdaa hadda kambaniyyaasha markay is haysiinayaan oo kale
telecommunication arkaysa waxa lagu leeyahay konton shil ayaad waxaad ku helaysaa intaasoo qad free ah intaasoo call free ah SMS marka aad fiirisan gudaha uma helaysid waxaa la dhahaa misleading advertisement marka waxaan hadda aan sheegnay oo ah maxaa la yidhahdaa dadka wuxuu kusoo jiidan ayuu fiirinaya ninkan maadaama maqaaxidiis websitekaas yahay oo kale wuxuu fiirshay mid runuu sheegay runtii dadka ma aadin mid beenuu sheegay wax badanuu ku helay markii dambena asna waxay u noqonaysaa qof integrity la ma ahan oo beri kama fikiraya waxa kaaga imaan karo laakiin asaga hadda wuxuu fiirinayaa un maxaa la yidhahdaa waxa hadda helayo soo ma fahmin marka dadka horta waa in la kala soomaalida waxay jecel yihiin saa ogtahay warkan iyo meeshaas wax ka dhaceen maanta iyo waxaas ayay jecel yihiin haddaad noqoto caafimaad ahaan oo kale inaad ka fiirsatid sheekadan hadda aan ka sheekeynayn oo kale waxay tusaale weyn u tahay dadka waxyaabaha ay qadka ka akhriyaan ha ahaato social mediaha Facebook Instagram wax raba ha ahaado ama website caadi ha ahaado ama YouTube waxa ha ahaado in wax kastoo aad aragtid aad aaminin oo aad ka fiirsatid teeda kale markaad diin raacanaysid oo kale hadda kitaab dhageysanaa sheekh maxaa la yiraahdaa Suuri gees ka jooga wuxuu sheegay iska dhageysana ada asal u heeyo qofku wuxuu yahay backgroundkiisa aadan aqoonin iyo wax kasoo bartay aadan aqoonin labada beri waa ogtahay school of thought ama madhabaad jiraan inaad iska aamintid ma ahan sects waxa la dhahaa jiraan waa la ogyahay dad hadda muslimiin koraa laga yahay laakiin waxyaabo badanaa jiraan inaad iska aaminto iska dhageysatid ma ahan because hadduu caqiidadaada iyo waxyaabahaas ayaa affect ku sameynaysaa tan labaadta waa tan daawada oo kale waa isaga shakisay imisa cudura isku maxaa la yidhahda calaamada leh maanta malaria hadii kugu dhac madaxa ku xanuunayo hadii typhoid kugu dhac madaxa ku xanuunayo hadii google aad gashid oo intaad fiirisid calaamadaha qabtid cudur gooni ku sheego daawada iska soo gadatid caafimaadka ee dhaawac u geynaysaa labadaba isku mid waa qofna haddaad iimaankaada wax u gaarsiisid ama caafimaadka wax u gaarsiisid dangerous weyn ayaad ku jirtaa soo ma fahmin marka aniga hadda waxaan aqaanaa oo dad aan aqaano weligooda Nairobi ka tagin oo website leh oo YouTube channel leh oo lacag intaasoo kumanaan bishii qaataan oo weligoodana Soomaali warka ay tabinayaan ayaga soo sameynin waxa la soo xadaa isku jar dhacdhacda waxa uu cad asaga ma ahan in maxay la dadkan ay run helaan ma ahan ee wuxuu ka fikiraa wuxuu bishii helay soo ma fahmin inkastoo ay ahayd meediyaha iyo waxyaabahaas waxa loo sameeyay inaad dadka ku wargelisid oo ay fahmaan dadka waxyaabaha u wanaagsan oo adii dadka mugdiga kaga saartid oo ku cilmiyeysid ayaa looga talagalay laakiin ayaga hadda opposite ayay isticmaalayaan TV-yaasha oo kale waxay ugu duwan yihiin TV-yaasha waxay leeyihiin directors ay leeyihiin sharciga ay leeyihiin editors ay leeyihiin waxyaabo markii la soo saaro oo kale inay policy-gooda oo kale sameeyaan in kale ayaa la fiirin meel loo soo raacay ayaa jira laakiin markaad channel ama social media leedahay ciisa ku furaysa adaa iskale tukaankaaga oo kale markaa furto waa xire waxaa rabtaa geline marka waa disadvantage of social media ga saacadahan iyo sanadaha ugu dambeeya socdo